ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyay qaybo ka mid ah degmada Afgooyo waxa ayna ku soo qabqabteen dad u badnaa dhalinyaro kadib dilkii gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dadka lagu qabqabtay howlgalkan ayayna ciidamada isugu geeyeen saldhigga booliiska ee degmada oo la sheegay in lagu kala saarayay dadka la soo qabqabtay. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooyo ayaa sheegay in dadka howlgalkan lagu qabqabtay baaritaano dheeraad ah lagu sameyn doono isla markaana la iska sii deyn doono ciddii aan dambi lahayn. Saraakiisha ciidanka booliiska ayaana sheegay in sidoo kale baaritaano ku socdaan askartii ku sugnayd guriga gudoomiye ku-xigeenka ee bam-gacmeedka lagu weeraray. Weerarkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ayaana xaalad amni geliyay degmada Afgooyo iyadoona xalay bandow iskeedaha ay u gashay degmada. Al-shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda weerarkii lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Carawi. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaarayay degmada Afgooyo ayaana waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana goobaha ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka ay si caadi ah u socdaan.